Welcome, man. Yes, man. Thank you, man. Wonder why صاحب. سيدنا بعدين. الحمد لله برادر في عنها يا صورنا. والله وكفي عنها ما شاء الله الحمد لله جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا بلاتفورم كوحترشة تيكسي تكنولوجي. كاسود حقوق بركاته هاب أونلاينا. أدو شوكا غوريغا أما غوب هذا الشغل. muuqaalkan waxaan ku sharaxi doonaa ama ku baran doonaa habka ay youtuberadu u qaadaan waraysiga ama isku soo dhexgeliyaan muuqaalada iyagoo ka qaadaya waraysiyadaas dadyow kala jooga meelo kala duwan. Waraysiyadaas waxaa ka mid ah waraysiyada ay qaadaan Yahya Hunter iyo Asad Hagio. Si aad xoogaa u fahanto duruucda muuqaalkeenan ila soo daawo fiidiyogan. Welcome, man. Yes, man. Thank you, man. Wonder why صاحب. سيدنا بعدين. الحمد لله برادر في عنها يا صورنا. والله وكفي عنها ما شاء الله الحمد لله جميل. Fiidiyogan samayntiisa waxaanu adeegsan doonaa labada software ee Adobe Premiere Pro iyo Adobe After Effects. Inagoo ku horeyn doona oo ku bilaabi doona Adobe Premiere Pro-ga. Aynu bilowno. Okay, waxaanu ku bilaabi doonaa ama aynu ku horeysiin doonaa sin hore u soo sheegnay software-ka Adobe Premiere Pro. Marka koowaad waxa laynooga baahan yahay in software-keeni soo furano oo aynu soo kicino. Mar labaadka waxa laynooga baahan yahay inaynu soo furno fiidiyowadii aynu u baahnayn ama aynu ka sameynaynay muuqaalka. Tusaale ahaan labadan fiidiyo ayaanu ka sameynaynaa. Waa fiidiyo Asad iyo fiidiyo aniga. Kadib waxaan sameyn doonaa fiidiyogan Asad ayaan marka hore soo horjeedi doonaa timeline-ka ayaynu keenaynaa. Timeline-ka markaanu keenno san inoogu soo furmo waxaynu dooni doonaa halka uu ka bilaabayo ama uu muuqaalku ka bilaaban doono muuqaalka saxda ah halkaas ayaynu ka jiri doonaa. halkaa markaa waxaan taaban doonaa W ayaynu keyboardkeena taaban doonaa si intaa hore uu inooga jiro. Okay, timeline-keena ayaynu si kusoo ceshan doonaa kadibna xagga ugu horeysa ayaynu tegi doonaa. halkaa markaynu tagno waxaan tegi doonaa fiidiyoga Asad ayaynu dul tegi doonaa. kadibna waxaan tegi doonaa effects control-keena. waxaan kasii tegi doonaa qaybta opacity-ga. waxaan kasii dooran doonaa maskigan kan rectangle-ka ayaynu kasii dooran doonaa ama square-ka. kadib kaasaynu click taabanayna. markuu sidaa inoogu sameeyo waxaan tegi doonaa korneyaashan oo saasaynu soo select garayn doonaa. si si fiican ugu wada muuqdo markaynu weyneynayno xaggan ayaynu tegi doonaa 50 ayaynu kasoo dhigan doonaa oo fitka ayaynu ka qaadi doonaa. labadan ayaynu jiidi doonaa markaa. koonahan ayaan geynayaa. labada koonaha markaan geeyo xaggan ayaanu soo jiidi doonaa. xaggan markaan soo jiido waxaan tegi doonaa xaggan qaybteena mask baska maaha kan hoose mask faarqabka ay ku qorantay ayaa waxaan ka dhigi doonaa ama tirada markii hore ahaa ayuun kordhin doonaa. Okay, xoogaa ayaan kordhinayaa. xoogaa markaan ilaa meelaha gaarsiiyo ayaan iska joojinaya. Okay, saas ayaan ku daynaya. saa markaan ku daayo waxaan soo qaadi doonaa isla muuqaalkii kale. muuqaalkii kale markaan soo qaado muuqaalkan kale dushiisa ayaan dhigi doonaa. marka muuqaalkan kale dushiisa dhigo xaggan ayaan tegi doonaa. xaggan markaan tago waxaan soo koobiyeysan doonaa isla opacity-ga xaggan hore aan ku sameeyey ina kor right click taabanayna dadna copy odhanayna isla maskiga soo koobiyeysanayna. halkan waxaan imanayna waxaan odhan doonaa best inaka waqti badan inay ka bixin waxaad arkaysaa inkaynu inoo sameeyey. Okay, markuu inoo sameeyey maskigeennan waxaan odhan doonaa un kan intaan nimaadno ayuun maskigeeni select garayn doonaa. markaynu maskigeeni select garayno xaggan markii hore inoo yaallo inbaynu side-ka kale u bedelaynaa. waynu jiidaynaa side-ka kale unbaynu geynaynaa. side-ka kale markaynu geyno waxaan tegi doonaa xaggan ayaynu tegi doonaa positionka fiidiyoga ayaynu marka hore dhaqaajinaynaa. positionka fiidiyoga markaan dhaqaajino koornaha ayaynu geyn doonaa. koornaha markaynu geyno waxaan kasoo daba jiidi doonaa un maskigeeni. maskigii kale ayuunbaynu ag keenaynaa. Okay, soo dhaweyna weliba xaggan ayaynu keenaynaa. halkaa markaynu keenno waxaanu sameynaynaa fiidiyogan Asad ayaynu shaqaysiinaynaa. fiidiyoga Asad baynu qaadanaa xagga kore ayaynu geynaynaa kana hoos baynu soo dejinaa kana kasoo daba dejinaa. halkaas ayaynu ku daysanaa. halkaa markaan ku daysano aynuunka fit soo nidhaahno. fit markaan soo nidhaahno halkaas aynuunka inay labadeennii muuqaalayna si fiican isku yara dhex gelin aynu weliba isku sii yara habayno. kan aynu soo yara weyneynayna opacity-giisa waxaan leeyahay scale-kiisa. markaan waxoogaa soo yara weyneyno ilaa meelahaas oo kale ayaynu soo weyneynayna. meelahaas oo kale markaynu soo yara weyneyno hoos ayaynu weliba u yara dadejin doonaa si uu isugu size u yara noqdo ama meelaha ay fiidiyadu yaalaan ay isugu soo yara dhawaadaan. weliba aynu yara weyneyno xoogaa kadibna aynu hoos u dejino. Okay, waxaad moodaa iminka inay isku soo dhowdhow yihiin ama isku qaab yaran yihiin. Okay, waxaanu samayn doonaa waynu belegarayn doonaa markaa kadibna waxaynu iminka isku beegbeegi doonaa codadkooda iyo su-aalaha iminka ay isweydiin doonaan. marka koowaad fiidiyoga muuqaalkeena intaa hore way ka boodi doonaa xagga dambe
ayaynu kasoo goosan doonaa. Inaka halkaa tigina deetana select ayaynu taabanayna, waxaan taaban doonaa command iyo k baynu taabanayna. Labadan hore waynu iska delete garayn doonaa, intaan soo select garanaya delete iska taabanayna. Labadan ayaynu mar labaad select garaysan doonaa, kadibna waynu jiidan doonaa, waxaynu geysan doonaa koonaha ama bilowga muuqaalka. waxaad arkaysaa inay in yar ay xag kala horeeyaan, kadibna kan ayaynu soo jiidi doonaa, kana waynu jiidi doonaa si aynu isku leekaysiino. bilowgaynu geyn doonaa markaa. waxaad arkaysaa inuu muuqaalka kala guda jiro. waxaad arkaysaa halkaa inuu muuqaalkii kale ama codkii kale ugu dhex jiro, kadibna halkan ayaynu jiri doonaa, muuqaalkan ayaynu jiri doonaa. Yes man, thank you man. Waduh Asad. Sedang berada. Alhamdulillah berlalu berada. Seorang. Allah berada, mashallah, alhamdulillah. Jadi. Okay, iminka waxaad arkaysaa inuu muuqaalkeeni uu isku fadhiyo ama uu hal meel uu ku dhammaanayo. waxaanu samayn doonaa isaga waxa u saaran waa music backgroundkaas ayaynu saari doonaa si uu codku ama muuqaalku uu isu lahaado. Okay, kaas ayaynu ka dhigi doonaa marka halkaas aynu ka jarayna, halkaa marka jarna intana waynu delete iska odhanayna, intana waynu deleekaysiinayna. Deleekaysina ka sii waynu ku ceshanayna, aynu mar labaad deleekaysana ballan wax kaga qaldinaysa. Yes man, thank you man. Waduh Asad. Sedang berada. Alhamdulillah berlalu berada. Seorang. Allah berada. waxaad moodaa inuu codkiisu yaro sarreeyan yar ayaynu hoos yaro dhigi doonaa. mar labaad ayaynu deleekaynaa. Yes man, thank you man. Waduh Asad. Sedang berada. Alhamdulillah berlalu berada. Seorang. Allah berada, mashallah, alhamdulillah. Jadi. hadda waxaynu dhammaynay oo aynu samaynay muuqaalkii aynu markii hore soo daawanay ama aynu arkaynay. imikana waxaynu ku xigsiin doonaa qaabka loogu sameeyo Adobe After Effects isla muuqaalkan laftarkiisa. Okay, markaynu intaa kaga nimaadno Premiere-kii, imikana waxaynu eegi doonaa sida loogu sameeyo software-ka Adobe After Effects. marka koowaad software-keena soo furan doonaa, labadii video-na waynu soo furan doonaa. Okay, labadii video markaynu soo furno, kan ayaynu soo horjeedi doonaa Asad, timeline-ka ayaynu keenaynaa. timeline-ka markaynu keenno, halkii markii hore aynu doonaynay ayaynu geysanaynaa. Okay, halkaas ayaynu ka jaraynaa, waxaynu taaban doonaa keyboard-ka Command Shift iyo D oo u dhiganta cut. kadibna waxaan kusoo noqon doonaa zero time-ka. Okay, zero time-ka markaynu keenno, waxaan soo qaadi doonaa keenii kale. kan aynu soo jeedinaa, isagana halkan aynu keenaynaa. waxaan taaban doonaa Command iyo right bracket-ka siduu kan inoogu soo kormaro. Okay, Command iyo right bracket markaan taabano, kana waynu soo jeedi doonaa, halkaas ayaynu ka jari doonaa. videodan isku in ayaynu ka dhigi doonaa. kana Command Shift iyo D ayaynu taabanaynaa. intaas ayaynu ka jaraynaa, hadda mana delete ayaynu iska odhanaynaa. Okay, halkaa markaynu ka dhigno, waxaan tegi doonaa videogeenan sare ayaynu tegi doonaa. macnaha waxaan ka wadaa kan sare ayaynu tegi doonaa. kan sare markaynu tagno, halkan ayaynu tegi doonaa. xagga markaynu tagno, kan ayaynu taaban doonaa double click siduu inoogu mask gareeyo. double click ayaynu taabanaa. iminka mask ayuu inoo sameeyey. videogeena oo dhan buu mask gareeyey. kan deetana waxaynu odhanaynaa double click-kaas ayaynu taabanaa si aynu free transformation u sameyno. waynu jiidaynaa koonahaas ayaynu geynaynaa ilaa halkaas ayaynu geynaynaa. halkaa markaynu geyno, waxaan taabanaynaa videogeena ayaynu B taabanaynaa si position-ka aynu noogu muuqdo. position-kii baan qaadanaa, waan dhaqaajinaynaa. waxaan geyn doonaa ilaa koonaha. waxaan odhanaynaa free transformation, double click baan taabanaynaa. wayn jiidaynaa markaa ilaa halkaynu ka geynayno, halkii markii aynu doonayno. ilaa halkaa markaynu ka geyno, kan dibeynu u celinaynaa. Okay, kanna xaggan ayaynu u celinaynaa. sidaa markaynu samayno, waxaan tegi doonaa videogeenan kale, kan baynu iska qarin doonaa. kan markaynu iska qarno, kan ayaynu tegi doonaa. kanna sidii oo kale ayaynu double click-sana ku samaynaynaa. double click markaan samayno, kan halkaas waan double click taabanaynaa. double click markaan taabano, kan ayaynu soo jiidaynaa. kan markaynu soo jiidno, halkaa ayaynu keenaynaa. halkaa markaynu keenno, waxaan furi doonaa maskigan ayaynu furi doonaa. waxaynu furi doonaa isagana waxa loo yaqaano mask farther ayaynu ku sameynaynaa. Okay, hareertan baad arkaysaa, imikaynu kaga soo batay, tan ayaynu double click taabanaynaa. tan baynu ka jiidaynaa, kor ayaynu jiidaynaa. tanna sidoo kale kor ayaynu jiidaynaa si farther inkaasi uga yaraado. kanna hoos ayaynu ka jiidaynaa si farther inkaasi ugu yaraado, hareerta keliya ta u noqdo.
Okay, videogeeni kale ayaan soo furaynaa. Aynu isha ka qaadno, aynu isagana soo furno. Isagana waxa u dhiman in isagana further ku sameeyno. Halkii baynu soo furaynaa. Maskigi baynu soo furaynaa. Mask markaan soo furno, mask 1 ayaan soo furaynaa. Furtherinka ayaan kordhinayna. Furtherinka markaan kordhino waxaad arkaysaa in labadeeni video soo dhex geliyaan oo hareerihiisa ka imanayaan. Marka kan ayaan hadana yara durkinaynaa soo hareeraha aan wax furtherin ugu yeelan. Okay, ardayo imika waxaad arkaysaa inaynu labadeeni muuqaal aynu soo dhex gelinay oo aynu masking ku sameynay inagoo adeegsanayna software-ka muxuu ahaayay Adobe Premiere Pro iyo software-ka Adobe After Effects. Waxaynu ku guuleysanay oo aynu sameynay muuqaalkii aynu doonaynay inaynu sameyno inagoo ku sameynay labadii software-ba Adobe Premiere Pro iyo After Effects. Haddaba platform-ka waxbarashada TC Technology wuxuu ku diyaariyay laba course oo aad ku dhigan doontid ama aad ku baran doontid muuqaal samaynta. Haddaba haddii aad tahay arday hore u qaatay koorsooyinkan, fadlan la wadaag cidda aad la jeceshahay inay ka faa'iideysato fursaddan. Haddii kale oo aad tahay arday cusub oo aan hore u qaadan koorsooyinkan, fadlan hadda isdiiwaangeli oo ka faa'iideyso fursaddan.